bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka rag iyo haweenba intooda taqaana Maxamuud Khaliif waxa ay isku raacsan yihiin inuu yahay Maxamuud shakhsiyad lagu yaqaano mas'uuliyad maamul iyo taakulaynta kuwa tabaalaysan in badan oo kamidana waxa ay soo jeedinayaan in la joogo xilligii injineer Jabiye la siin lahaa fursad ay filayaan in laga faa'iidi doono. Maxamuud aniga horta waxa waa imaadi meeshan waxa daraad waxaan rabaa inaan oo Maxamuud oo taageero oo imaadi aniga reer Baraawan dhahay horama waa ku jira reer Baraawan waa ku jira Ashraaf waa ku jira meeshan dad badan ku jira hal sharti waxa reer Puntland la kaligood ma aha dadka dhan waa taageero Maxamuud jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Missouri kuwaas oo ka tirsanaa injineer musharax Maxamuud Khaliif Jabiye ayaa shir jaraa'id ay ku taageerayaan musharaxa ku qabtay magaaladan Kansas City. Jaaliyada ayaa shirkan jaraa'id ku muujiyay dareenkooda iyo tilmaamaha ay ku yaqaanaan injineer Jabiye. sababta aan u hadlayo ama aan ugu hambalyeynayna waxay tahay aqoon aan u leeyahay Maxamuud oo aan ku aqaano Soomaalinimo, wanaag, sharaf, ixtiraam, hogaamiye inuu nin hogaamiye yahay. qofka hogaamiyaha waxa laga fiiriyaa saddex shay koow inuu deeqsi yahay laba inuu geesi yahay saddex inuu runlow yahay Maxamuud saddexdii buu leeyahay xoogaa jalasaha ugu jiro waxaan leeyahay ninkan waxa fiicnaan lahaa inuu galmudug u tartamayo laakiin wax badan baa nooga hormarteen haddaad maanta Jabiye doorataan khayrkaad nooga hormarteen marka waxaan leeyahay Puntlandow maanta ninkii ku habboonaa inaad doorataan iyo waqtigiiba waa la joogaa odayaasha salaadiinta isimada waxaan maantay fursad baad haysataan maanta dadkiina u faa'iideeyay dad maamul iyo nidaam iyo wanaaga lagu tuhmahayaatiina ninkii maanta aad dooran lahaydeen anu reer Galmudug waa idin ishaarahaya waa Jabiye. waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan oo la halgamaya nolosha Mareykanka ee mashquulka badan ayaa qiray in injineer Jabiye uu yahay calaamad lagu xasuusto caawinta bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan arrimaha dhalinyarada. waa nin maaragtay waxa weeye tiisa daryeelay nin tiisa daryeelayna waxa weeye bulshada hadduu bulsho xil u qabto inuu anfacayo waa la hubaa wax hubaa la way ka dhalinyaro ahaan waxaan jeclahay insha Allah inaan dhowr wax oo bulshada u qabtay dhalinyarada inaan anigu intaan ka ogahay inaan ka magacaabo masaajidkan inoogu dhow hadda masaajidada magaalada ka dhisan Taqwa meel u dhow oo ciyaalku ku ciyaaraan oo waxa jirtay la dhisay ayaan dhexe qayb weyn inuu ka qaatay baa maartay lagu wargeliyay waxaan qabanaa anaga waxaan qaban jirnay waxaan kamid ahay urur dhalinta waxbarata jaamacadaha heer jaamacadeed dhalinta gaartay urur ah baan ku jiray dhowr jeer ayaan qabanay xaflado aan ku bogaadinaynay dhalinyarada aysa high schoolka oo high school ka qalin jibisay high school ka qalin jibisay oo college u socda baan dhiirigelin jirnay waxaan qaban jirnay xaflad yar oo ah maartay waxa hore u sii socda marka xafladda abaabulkeeda ku jirno waxaan u baahnayn maartay xafladda marka qabanayno wax yar oo maartay meelaha maartay aan ku kireysano kale meel hadaan goobtii waxyaalaha maartay u baahnay xafladda ugu baahnayno kale maruusan maartay naga caawin ma jirin mar kastaba intaan xasuusto sanadii u dambeeyay aniga aan joogo magaalada mar kastaba maartay naga caawin jiray abaal weyn ayaan ugu haynaa waa mid ku tusaysa marka hadda bulshadan caaw hadashay qayb kasta isugu jiraan waxa waa mid ku tusaysa qayb kasta bulshada kamid ah ninkan inuu maartay waxa weeye xiriir la lahaa. waalidiintan ayaa qiray in Maxamuud Khaliif wax badan uu ka bedelay nolosha ilmahooda goorta uu garoomo ay ku ciyaaraan kuna nafisaan oo u gaday una dhisay ummad Soomaaliyeed oo dhisan buu ka tagay oo sharaf ku leh bulshadii ay ku dhex noolayd ilaahay ka sokowna sharafta iyo wanaaggaas gacantiisa ka timid. talaabadan ayaa dareensiisay jaaliyada inay jiraan maalqabeeno muslimiin ah oo u damqay mustaqbalka ubadkooda kana dhidiyay in ilmaha Soomaaliyeed iyaga oo ku labisan khamiisyo oo hanqal taagaan garoomada ciyaaraha ee ku dhex yaala kaniisadaha ku dhow goobaha ay degan yihiin ee la ologa ah. garoomada goobtan uu ka dhisay ayaana isugu jira kuwa kubadda kolayga iyo tan cagta oo ay dhalinyaradu ku najaxeen. runtii rag badan oo aan aqoon u leeyahay yaa tartamayo oo anu hadda aan aqaan
markaan iyaga barbar dhigo runtii ninkaan ka qaadan lahaa weeye. markaan arkay oo meeshaasaan ka sharaxnahay igu yidhi ilaahay baan ku dhaartay aad baan u farxay reasonkaan u farxay ama dantaan u farxayna waxay ahayd inuuna madaxnimo raadinaynin baan ogahay inuu raadinayaan ogahay dalka danta iyo diintaba nin u khidmeynaya u gargaaraya inuu yahay nin aad iyo aad u qiimo badan waay nin aad iyo aad u deeqsi badan waay nin aad iyo aad naxariis badan waay nin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ee tawaaduc nin ilaahay ku xiran buu ahaa waxa aan garanayaa baan ka sheegayaa qof kaste oo North America xil ka qabtay oo Soomaaliya uu Maxamuud dadaalkiisa ku imaan ma jiro isay noo wada sheegeen social media waa laga arkay. masjidkan waxaa aad ugu yaraa meesha la dhigto baabuurta loona yaqaano parkinga. iminka goobta yar ee aad u jeedaan ayaa u ahayd parking kumana filnayn inay qaado baabuurta musalliinta kusoo tukata masjidkan. arrintaasi caqabad ayay ku ahayd masjidka maadaama mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaaladan ay shardi uga dhigeen masjidka in dad badani aanay imaan karin sida maalinta jimcada ah iyo goorta xaflado ay jiraan ilaa masjidku uu helo goob baabuurta la dhigto oo weyn oo waafaqsan shuruucda dowladda hoose iyo shuruudaha u yaala goobaha bulshadu ay isugu timaado. arrintaasi uma sahlanayn jaaliyadan. si kastaba mar kale waxaa dusha u ritay gaday oo dhisay parkinka iyo meesha baabuurta la dhigto injineer Jabiye. jaaliyadan Soomaaliyeed ee Kansas City ee qabtay shirkan jaraa'id ay ku taageerayaan Maxamuud Khaliif Jabiye ayaa ahayd Soomaali isugu imaatay Soomaalinimo iyo weliba tilmaamaha ay ku yaqaanaan Maxamuud Khaliif. goobahan baabuurta la dhigto ilaa maanta waxaa isticmaalo hooyooyinka Soomaaliyeed kuwaasoo qalbigooda uu ku qanacsan yahay in caruurtoodu ay ugu ababaan masjidka, dugsiga iyo goobaha khayrka si caruurtoodu ay u dhaxlaan dhaqanka islaamka ayna ugu soo duceeyaan una sii ahaadaan muslimiin caabuda ilaahay oo keliya. saxaabadoo nebiga la fadhida maalin baa la soo mariyey janaaso qof dhintay meydkiis wax fiican bay ka sheegeen nebiguna wuxuu yidhi wajabad lahu way u dhowowday. haddana waxaa la soo mariyey janaaso labaad saxaabadii waxay ku sheegeen wanaaggii ay ninka hore ku sheegeen meydka hore mid ka duwan nebiguna wuxuu yidhi wajabad lahu way u waajibtay. antum shuhadaa ullaahi cala alardi weye idinka ayaa dhulka ilaahay marag uga ah. waxaan u malaynayaa Maxamuud wax badan ka oran mahayo intii igu horeysay baa ka warbixisay oo tilmaantay qofka uu yahay. waxyaalihii uu qabtayna waa wax muuqdo oo marag labaad oo ina horyaal anoo aan qofna macsuum ka dhigaynin oo dhaliil ka bari yeelayn malaa'igta ilaahay iyo rusushu noo soo diray aan ahayn haddana Maxamuud waxaan ku aqaanaa nin aamina oo runtii howlkar ah oo hal abuur leh ummadda uu la joogana wax tara. arrimaha caamka ahee ummaddu wadaagto ee maslaxada guud ahna wakti iyo dhaqaalaba ku bixiya runtiina waa nin go-aan qaadasho fiican. daawadayaal ayaamahan dambeba waxaa muuqatay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kansas City ay soo kordhaysay tiradoodu marba marka ka dambaysa. sidaas daraadeed bulshada ku xiran Masjidu Taqwa waxa ay qorsheynayeen in muddo aba sidii ay u dhisan lahaayeen masjid baaxad leh waxaana kurbadii ay qabeen ilaahay uu uga fayday oo dhulkii u iibshay ay rabeen inay dhistaan ilaa iyo in muddo aba Maxamuud Khaliif Jabiye. magaaladan Kansas City ayaan soo booqday xilli la qorsheynayo dhismaha dhulkan. haddaba mas-uuliyiinta masjidka iyo injineerada dhismahan ayaa isku afkartay in masjidka cusub naqshad ahaan uu sidan u ekaan doono. Maxamuud Dhulyadayn, Somali Cable, Kansas City, Missouri.